waayahay kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxa idin la wadaagi doonaa kulanka golaha wada tashiga qaran ee magaalada Muqdisho ka socda shalay iyo maanta qodobada xasaasiga ah ee miiska saarnaa ee la soo hordhigay dhammaan mas'uuliyiinta ama madaxda maamul goboleedyada dalka ee si weyn markaasi ugu wada farxeen ayaa halkan idin kula wadaagi doonaa maxay tahay waa laga yaabaa inaad weydiinaysid markii ugu horeyso hadii ay tahay markii ugu horeeyay ku soo gaaro muuqaalkay fadlan ama sanaad aragto bogeena like noo saar فلونا نصوده سين شير جريس الساحيبه فربضن وصداد أو كلا وجارو مهتنيدين شركة قولها وضع تشجع قرن أو مالكي شركة فرمي مجالة مقدشة أو أنا كسر قيب جلين مسؤولين تمر كاسي معمول قبلية الدلكة وجوه الريو مدحونها معمول كونفرجل بيت سوماليا عبد العزيز حسن محمد لفت جريد مدحونها معمول دولة قبلية كشوبلان مدن أحمد محمد إسلام مدحونها معمول كهيرشبيلة علي جود لاوي مدحونها معمول كجلمدوج عبد كاريو قورقور يولي بسدو كله رئيس وزراء جمهورية الفدرالية الصومالية رئيس وزراء كحجان كجمهورية الفدرالية الصومالية دقة عاصمة مجال مقدشة الصومالية مدن يوسف حسين شمعالي مدالة شركة نوحة مركزي شركة دومينيا مدحونها جمهورية الفدرالية الصومالية مدن حسن شيخ محمود الجنديال أو أي سوين أولاد عن مدحضة معمول قبلية الدلكة أيها الصهر لجي أو فيلا الصومالية هرتهضو أي ديارسي أو إن مركز أي هلي دونان مدكردين أو مركز اللي قرشين أيو إن مركز اللي قبض دور شوين كمعمول قبلية الدلكة شن يلا بعتنكا فبراير سنة الصوصة لابد يكون شن يلا بعتنكا تاسي oo ay markaasi ku sheegeen qoraalka ka soo baxay mas'ala laga helay madaxtooyada Soomaaliya ayaana ahaa in markaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu dantiisa ka dhaxarkay mas'ala markaasi muhiim u arkay in waqtigan la joogay maamul goboleed dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah tisa ay ahayd markaasi madaxweynaha mar hore uu dhawaaqay waxaana sidoo kale madaxda maamul goboleed dalka iyaguna markaasi ay ka dhax arkeen dantooda muhiimku ah maadaama labada dhinacba markaasi muddooyinkii ugu dambeeyay aad ay isku haayeen laakiinse waxaana aad markaasi u xoogeystay ama guux weyn ugu soo dhaxbaxay hadal haynta ka dhalatay muddo kordhinta maamul goboleedyada dalka maadaama bulshada markaasi si weyn ula socotay shirkan iyo waliba sidoo kale abaabulistiisa ay qorshe weyn ay kala haayeen misna ay damacsanaayeen in isbedel weyn uu ka dhaco maamul kaste ama maamul goboleed kaste ay ku nool yihiin maamul goboleedyada dalka ayaana markaasi la sheegay in muddo kordhintan ay si weyn ay u soo dhaweeyeen waxaana sidoo kale markaasi madaxtooyada villa Soomaaliya ay diyaarinaysaa guddi doorasho oo markaasi qayb ka ahaan doona samata bixinta iyo waliba codeynta doorashada qof iyo codka ah muddo kordhintan loo sameeyo waa markaasi mas'uuliyiinta maamul goboleedyada dalka iyadoo markaasi ay u diri doonto guddi doorasho oo ayna diri doonto wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya taasi oo ay markaasi qayb weyn ka ahaan doonto doorashada ka dhacaydo maamul goboleedyada dalka ee ugu horeeydo koonfur galbeed Jubbaland iyo waliba sidoo kale Hirshabeelle Galmudug oo dhamaantoodba muddo-xiliyadeedii muddooyinkii hore ay haysteen markaasi waqtigan uu ka sii dhamaanayo in badan maamul goboleedyadu waxa ay soo kordhisanayeen ama ay isu awood ahaan iyo waliba sidoo kale tay ahaan ay u soo kordhisanayeen muddo-xiliyadeeda ay markaasi ay ku fadhiyeen laakiinse haddan waxa mar kale ay muuqata in markaasi si weyn u sii ansixmi doono ama markaas u dhaqan gali doono muddo kordhinta uu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya maadaama uu ka dhaxarkay dantiisa iyaguna markaasi ay ka dhaxarkeen danahooda gaarka ah ee markaasi ay damacsan yihiin maamul goboleedyada dhammaan shirkan soo wada xaadiray ayaana markaasi qodobada la soo hordhigay qayb ay ka ahayd muddo kordhintan inkastoo aan wali si rasmi ah loo xaqiijin karin laakiinse xogaha rasmiga ee laga helayo madaxtooyadu ay si durba u sheegayaan misna website-yada waaweyn ay daabacayaan iyadoo markaasi siyaasiyiin fara badan durbadii markaasi aragti iyo waliba sidoo kale fikrado kala duwan ee markaasi ka soo dhiibanaya waxaana ugu horeeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo qoraal dheer bartiisa Facebook ku soo daabacay ayuuna ugu hadlay maqaalka oo ahaa madaxda dalka iyo waliba maamul goboleedyada iyo madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa in ay dalka ay samata bixiyaan door weyn ay ka qaataan ayna daadajiyaan aragtida siyaasadeed ay bulshadu damacsan yihiin misna ay u baahan yihiin maanta in lagu hogaamiyo waa qoraal aad u dheer oo bartiisa uu ku soo daabacay isagoon ugu hadlayo xaaladda dalka iyo waliba sidoo kale waxyaabaha sida weyn ee markaasi u hortaagan maamul goboleed dalka iyo waliba sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kale waxaana sidoo kale jira siyaasiin kale iyaguna ka aragti duwan oo markaasi si weyn ugu taageerayay misna sheegaya
inay markaasi helaan waqti ku filan maadaama muddooyinkii ugu dambeeyay isjiijitin iyo isqabsasho iyo dagaal ka dhan kooxda AS lagu jiray laakiin hadda loo baahan yahay in maamul kasta uu soo dhisi karo ama soo muujin karo wax allaalaay wixii markaasi u baahan yahay waa aragtida qaybo badan oo ka mid ah siyaasiyiinta iyo waliba sidoo kale dadka muddada faraha badan siyaasadda ku jiray hadaba aragtidaada haddii shirkan oo hal maalin kale u sii harsan yahay oo ku sii socdo si ansaxo مثلا markaas dhaqangalo muddo kordhinta doorashada ama doorashooyinka maamul goboleedyada dalka saameyn intee leeg ay ku keeni kartaa siyaasiyiinta dibad joogga ka siyaasadda maanta aragtidaada qaybta hoose faallada commentiga noogu reeb muuqaalkan haddii uu ku soo gaaro fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad meel dheer noo gaarsiiso kaliya waa like iyo share noo qabta mahadsanidin